Wixii ka dambeeyay dabayaaqadii bishii Abriil ee sanadkan markii gobolka Kashmir qaybta ee Hindiya maamusha lagu dilay 26 qof oo dalxiisayaal ah waxaa sii kordhayay xiisadda u dhaxaysa Hindiya iyo Bakistaan. Hindiya ayaa si joogto ah Bakistaan ugu eedeynaysay inay weerarkaasi fuliyeen falaagada ay taageerta Bakistaan ee dagaalka kula jirta ciidamada Hindiya ee Kashmir. Inkastoo Bakistaan ay weerarkaasi iska fogeysay kuna baaqday in la sameeyo baaritaan madax bannaan, haddana arrintaasi waxay noqotay mid marba marka ka dambeysa xiisadda sii kordhinaysa, waxaana dhinacyada ay hawada isu marinayeen hadallo xanaf leh oo hanjabaad u badan ilaa laga gaaro habeennimadii Arbacada aynu ka soo gudubnay, markaas oo ay xaaladdu isu beddeshay gacan ka hadal. Hindiya ayaa weeraro bartilmaameedyo ah ku qaaday gobollo ku yaala gudaha dalka Bakistaan, waxaana ay sheegtay inay beegsatay xarumo ay lahaayeen falaagada ka dagaalanta gobolka Kashmir, kuwa oo ay taageerto dowladda Bakistaan. Duqeymaha ay Hindiya ka geysatay gobollada Kudli, Bahawalpur, Ahmedpur, Bagah, Muzaffarabad iyo Muridki ayaa sababay geerida ugu yaraan 38 qof, halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Bakistaan oo lagu magacaabo Generaal Ahmed Sharif. New Delhi ayaa iyaduna sheegtay in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen madaafiic ay Bakistaan soo tuurtay, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Hase ahaatee, militariga Bakistaan oo tallaabadan ka jawaabaya ayaa soo riday 5 diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada Hindiya, iyagoo sidoo kalena duqeymo ku burburiyay mid ka mid ah saldhigyada ciidanka lugta Hindiya, sida uu tabiyey TV-ga dowladda Bakistaan. Inkastoo ay Bakistaan sheegtay inaysan weli ka jawaabin weerarka Hindiya, waxa ay mar horeba khasaare gaarsiisay Hindiya oo lumisay 6 diyaaradood, 2 ah kuwa duuliyaha aan lahayn, burburinta ugu yaraan 2 saldhig oo militariga Hindiya ay ku lahaayeen xadka, qabashada askar ka tirsan ciidanka xadka Hindiya, iyo dhimashada ugu yaraan 10 qof oo ciidanka Bakistaan ay ka geysteen gudaha Hindiya. Waxayna u muuqataa Bakistaan inay Hindiya ka fogeynayso mar kale inay ku fakaraan isku day ah inay weerari karaan Bakistaan, waxaana muuqata in Bakistaan ay iskahorimaadkan ku soo bandhigeen tiknoolajiyadooda sare ee awoodda u siinaysa inay dhulka dhigaan diyaaradaha Hindiya iyagoo aan ka soo bixin hawada Hindiya. Diyaaradaha ay Bakistaan soo riday oo 3 ka mid ah ay ahaayeen nooca Rafale ayaa mid kasta joogta $288 milyan, waxaana maxsuulka uu noqonayaa in wax ka yar 5 saacadood Hindiya ay ku lumisay dhaqaalaha diyaaradahaasi oo gaaraya $864 milyan, taas oo dharbaaxo culus ah. Hindiya waxay la xiriirtay kadib weerarkii ay ku qaaday Bakistaan dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Ruushka si ay warbixin uga siiyaan weerarka ay ku qaadeen Bakistaan, kaa oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xadidan. Xilli xiisaddan ay sii kordhayso, waxaa dhanka kale isu soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa dalalka caalamka, kuwa oo ku baaqaya in xiisadda la hakiyo islamarkaana la isugu yimaado miiska wadahadalka. Xiisadda kacsan ee u dhaxaysa Hindiya iyo Bakistaan ayaa durba noqotay mid gaartay heer ka sarreeya rabshadihii ugu dambeeyay ee sanadkii 2019, taasoo halis ku ah xasiloonida gobolka, ayuu yiri falanqeeye Brevan Donti oo ka tirsan International Crisis Group. Diblomaasiyiinta caalamiga ayaa cadaadis saaraya labada dal si ay uga fogaadaan dagaal ballaaran oo dhinacyada dhex mara. Dunida ma awoodo inay aragto dagaal toos ah oo u dhexeeya Hindiya iyo Bakistaan, ayuu yiri Stephen Dujarric, afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo war-saxaafadeed soo saaray. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wariyaasha u sheegay inuu rajaynayo in dagaalka uu si dhaqsi ah ku soo dhammaado. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa la hadlay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan amniga New Delhi iyo Islamabad tan iyo weerarada labada dhinac, wuxuuna sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda. Walwalka caalamiga ah ayaa isi soo taraya iyadoo Shiinaha oo labada dalba deris la ah iyo dalal kale oo ay ka mid yihiin Britain, Faransiiska iyo Ruushka ay muujinayaan cabsi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa lagu wadaa inuu dhowaan gaaro New Delhi 2 maalmood kadib booqashadiisii Islamabad, iyadoo Tehraan ay isku dayeyso inay dhexdhexaadiso xiisadda labada dal. Walwalka uu kordhaya ayaa soo dedejiyey in laga digo in dagaalka labada dhinac uu sababo adeegsiga hubka nukliyeerka. Ururka caalamiga ee ka hortagga hubka nukliyeerka ICAN ayaa muujiyey walaac weyn oo ku aadan xiisadda dagaal ee u dhaxaysa Hindiya iyo Bakistaan. Malaysia Parki, agaasimaha ICAN, ayaa sheegtay in labada dal haddii ay isku adeegsadaan hubka nukliyeerka ay sababi karto dhimashada malaayiin qof. Waxay ugu baaqday labada dowladood inay muujiyaan xakameyn iyo isdejin, iyadoo sidoo kalena dunida ku boorisay in la xoojiyo dadaalada lagu ciribtirayo isticmaalka hubka nukliyeerka. Xiisadda dalalka Hindiya iyo Bakistaan ayaa saameyn ku yeelatay isu socodka duulimaadyada gobolka. Dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo qaaradda Aasiya ka howlgala ayaa sheegay inay baajiyeen duulimaadyadii aadi jiray ama uga imaan jiray dunida sababo la xiriira dagaalka u dhexeeya Hindiya iyo Bakistaan, maadaama duqeymo dhanka cirka ay isweydaarsanayaan labada dal. Si kastaba, dagaalyahanada ka soo horjeeda maamulka Hindiya ayaa tan iyo 1989 waday kacdoon hubeysan oo ay ku doonayaan madax bannaani ama in Kashmir ay la midowdo Bakistaan. Hindiya ayaa si joogto ah ugu eedeysa Bakistaan inay taageerto kooxaha hubeysan ee la dagaalama ciidamada Hindiya ee Kashmir, iyadoo eedeymahaasi ay Bakistaan had iyo jeer beeniso. Waxaase xusud mudan in labada dal uu u dhexeeyo khilaaf muddo dheer socday oo marar kala duwan sababay gacan ka hadal, kaas oo ku qotoma loolankooda ku aadan gacan ku haynta gobolka Kashmir.